jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan magaalada Omaha gobolka Nebraska ee dalkan Mareykanka ayaa u dabaaldegay 1 Luulyo 61 sano guuradii xornimada Soomaaliya. Munaasabadan ayaa waxaa sanad walba soo qaban qaabiya hay'adda Somali American Heritage Society of Nebraska waxaana lagu maamuusaa maalinta xorriyadda iyadoo halkaasi lagu soo bandhigay ciyaar kubadda cagta oo u dhaxaysay dhalinyarada ay da'doodu ka hooseyso 13 sano. waxaana loogu talagalay in dhalinyarada lagu xusuusiyo ahmiyadda ay leedahay maalinta xornimada iyo in ay ogaadaan taariikhda dalkooda hooyo. munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee degan magaalada Omaha ee gobolka Nebraska ee dalkan Mareykanka ayaa jawiga goobta waxa uu ahaa sida tan. عليكم ورحمة الله وبركاته. همبليو سند جوريدي لحدني كوات كسور وريقتي واجي حرمضة. وأنت ماشي وحنا وجوبنا سبورتي وأن وجود بالدقينو 1 لوليو ماشي نجوبنا وأوماها نبراسكا سبورتي كان وحنا نسوا أبولي Somali American Heritage waxaan ku ciyaarsiineynaa ilmaha yaryar ka ah waxaan noo yaala koob waalidiin badan oo naga soo qayb gashay dhammaan Soomaali weyn meel kasta ay joogto waxaan leeyahay hambalyo 1 Luulyo iyo waxaan u mahad celinayaa hay'adda ama community-ga noo soo abaabulay barnaamijkan Somali American Heritage waa maasin maanta oo tahay July 1st waxaan celebrate gareynaynaa u dabaaldegaynaa xornimadii 1 Luulyo Soomaaliya meel kasta Soomaaliya joogteen ana ku joogno Omaha Nebraska waxaan idin leenahay barwaaqo ku celebrate gareeya. Congratulations, let's unite, resilience. Soomaaliya ha noolaato maanta taariikhdu tahay 1 Luulyo waxa u dabaaldegaynaa xornimadeennii aan qaadanay 1960kii 1 July anagoo joogno dalka Mareykanka maasha Allah Soomaaliya ha israacdo insha Allah amiin. hambalyo waxaan hambalyeynaa dhammaan shacbiga Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan dhiirigelinaynaa midnimada ummadda Soomaaliyeed annagoo aad iyo aad macna misalayno jaaliyadda degan magaalada Omaha stateka Nebraska waxaan ugu hambalyeynaa shacbiga Soomaaliyeed dib ahaan waxaan dhiirigelinaynaa mar kastaba midnimada ummadda Soomaaliyeed mar labaad waxaan leeyahay hambalyo dhammaan shacbiga Soomaaliyeed عبدي hambalyo waan hambalyeynaa dadweynaha halka iskugu yimid shaalida halka iskugu timid gabdho wiilal ciyaal odayaal culumo inta waan hambalyeynaa waxa kale oo hambalyeynaa raggii xafladda quruxda badan noo qabtay iskugu keenjeeray ka soo shaqeeyay jildiga geliyay ayagana waan u mahadnaqaynaa dhammaan dadka jaaliyadda Omaha waan u hambalyeynaa gudoomiyaha Heritage iyo teamkiisa ayagana waan u hambalyeynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. hambalyaan leeyahay sanad guuradii 61 oo Somali Independence waxaan leeyahay meel kasta Soomaali joogto hambalyo baan leenahay nabad ka waara kuwii nabadan noo keenana ilaahay khayr Allah siiyo cadaabta Allah ka qabto waxaan leeyahay Soomaali iska soo laabato Allah noo kaso 60 weeye kowga kii lagu liibaanay Allah ka dhigo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. sidoo kale waxaa goobta ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka booliska magaalada Omaha ee gobolka Nebraska isagoo ugu hambalyeeyay bulshada Soomaaliyeed maalinta xornimada Soomaaliya. Hello everyone, my name is Greg Gonzalez. I'm a Deputy Chief with the Omaha Police Department, and on behalf of the Omaha Police Department, the City of Omaha, I'd like to congratulate the Somali community for their Independence Day celebration today. We are in a great state of Nebraska and Omaha, celebrating a nice night out with some great friends, celebrating a cultural event with some pizza and some other barbecue and great night of soccer. So congratulations, and I want to thank all my friends that have embraced us in the Somali population and welcomed us to enjoy the event with them. Thank you very much.